filimkan waxa uu ku bilaabmaya 1907 gabar yar oo la dhaho Ocean oo 7 jir ah. fadlan intayna filimka bilaabin waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe saad gambaleelkana furatid si ay kuu soo gaadhaan video walba oo cusub. filimkan waa filim Japanese ah oo la soo saaray sanadii 2013. filimku waxa uu ku bilaabmaya Ocean iyo family-keeda oo dhan oo wada cashaynaya. si kadisana waxa uu sheegayaa aabaheed in uu go'aansaday inuu berito la raaciyo reer taajiriin ah si ay ugu soo shaqayso. laakiin Ocean waxa uu sheegaysaa inay wali yar tahay oo tahay inay iskuul aado oo ayna ahayn inay shaqayso. waxaana sidoo kale hadlaysa ayeedeed oo isku dayaysa inay u sheegto inay gabadhu yar tahay oo tahay inay iskuul aado. laakiinse qofna ma maqlayo. laakiinse aabihii waxa uu sheegayaa inuu go'aansaday in ay tagto si ay masaarifta guriga uga caawiso. marka ay diidana waa uu kacayaa waana uu garaacayaa. waxayna isku dayaysaa hooyadeed inay ka celiso iyadoo u murugaysan arrinka laakiinse xaalka qoyska arkaysa. maalinka xigta waxaynu arkaynaa hooyadii oo isku ridaysa haro baraf ah si ay isaga soo tuurto ilmaha yar ay sido. waxaana uu imanayaa aabihii waana uu ka soo saarayaa haradii waxaana uu bilaabayaa inuu la dagaalo waxna ka celinaysa hooyadeed. waxa dhacaya way arkaysaa Ocean wayna ooyaysaa. waxaana u tagaysaa hooyadeed waxayna u sheegaysaa inay ku faraxsan tahay inay tagto laakiinse hooyadii way diidaysaa waxayna ku odhanaysaa waad yar tahay. Ocean way ku adkaysanaysaa. maalinka xigta Ocean oo saaxiibkeed la ciyaaraysa ayaa arkaysaa reerkii oo soo doonay. hooyadeedna waa u diyaarinaysaa waxayna u xidhaysaa dharkii dhaxanta waxayna u sheegaysaa inay is ilaaliso. sidoo kale ayeedeed waxay sii siinaysaa lacag waxaana u sheegaysaa inay ku iibsato wax walba ay u baahan tahay. waxay raacaysaa reerkii. hooyadeedna way ooyaysaa maadaama inay arkin inanteeda sanad. Ocean way ooyaysaa markay aragto hooyadeed oo ooyaysaa. waxaana sidoo kale arkaynaa aabaheed oo aad uga xun laakiinse waa ku khasban yahay maadaama uu dhaqaalahoodu xun yahay. maalinka xigta waxaynu arkaynaa gabadhii loo geeyay oo kicinaysa una sheegaysaa in ay hurdada ku raagin oo ay hore u shaqayso. waxaynu arkaynaa Ocean oo shaqaynaysa. kadibna marka ay martidii soo dhaweeyeen Ocean waxay isku dayaysaa in ay wax cunto daal badan ka bacdi laakiinse islaantii way garaacaysaa waxayna geynaysaa aqalkii si ay u soo xaaqdo. Ocean way xaaqaysaa aqalkii laakiin waxaana ay ku dhufanaysaa ushii. kadib Ocean way shaqaynaysaa. marka ay dhamaysato shaqada waxay u tagaysaa habartii guriga iska lahayd si ay cuntada uga soo qaadato laakiinse waxay siinaysaa hambadii. Ocean way cunaysaa maadaama ay baahi hayso. kadibna waxay raacaysaa caruur iskuul ka imanaysa iyada oo wada cunug ay u tahay habartii oo gabadheedu dhashay. waxaana arkaysaa islaantii waxayna u sheegaysaa inay soo raacdo. waxayna tegaysaa gurigii. cunugiina waxaa ka reebanaysa hooyadii isla markiina waxay u keenaysaa dhar si ay u dhaqdo. kadib way dilaysaa habartu waayo waxay ku maydhay biyihii ceelka laakiin Ocean way ku maydhi kari waayaysaa maadaama ay haradu baraf tahay. daal badan ka bacdi waxay ku kala dhacaysaa Ocean dhulka. waxaana u imanaysaa habartii iyadoo laag ku kicinaysa si ay u shaqayso. maalinka ku xigta Ocean waxay soo gelaysaa guriga waxayna u sheegaysaa habartii inay leedahay lacag. waxayna weydiinaysaa Ocean waxa ugu jawaabaysaa inayna arag laakiinse habartii waxay ku odhanaysaa iska qiro inaad tuugo tahay. Ocean waxa u sheegaysaa inayna tuugo ahayn. kadib islaantii waxay ka bixinaysaa dharkii waxaana ay ka helaysaa lacagtii laakiin lacagtani waa lacag ayeedeed soo siisay. waxaana ay ku odhanaysaa tuugo. Ocean waxay isku dayaysaa inay ku tiraahdo lacagta ana iska leh laakiinse waa ay qaraacaysaa. waxaana u imanaysaa gabadha ay dhashay habartu waxaana ku odhanaysaa waxaaday la mid ahayd gabadhayda oo kale. Ocean waxay isku dayaysaa inay u sharaxdo laakiinse ma dhagaysanayso. Ocean waxay ka baxsanaysaa gurigii. waxay socoto in badanba waa ay dhahaysaa waayo in badan waxba ma cunin. waxaana helaya nin ugaarsato ah oo la dhaho Bean. waxaana uu geynayaa guri isaga iyo aabahay ku wada nool yihiin. waxaana uu siinayaa cunto wayna cunaysaa maadamayna in badan waxba cunin. waxaynu arkaynaa kabacdi wiilkii inanteeda qabay oo dhulka ka soo helay lacag. waxayna ogaanaysaa habartii inay dulmiday Ocean. maalinka xigta waxa uu weydiinayaa aabihii guriga Ocean si uu u celiyo laakiin waxa uu sheegaysaa in aabaheed dilayo hadday ku noqoto. waxayna ka codsanaysaa inay la joogto. waxayna u sheegi doontaa inay u nadiifin doonto guriga hadday la joogto. Bean waa uu baxaya isagoo xanaaqsan. waxaana ka daba imanaysa Ocean iyadoo baryaysa una sheegaysa hadday la joogto inayna dhibayn
biinna waa uu ka ogolaanaya inay la joogto muddo yar kabacdina uu celinayo. ayaama kabacdi biin waxa uu barayaa sida wax loo akhriyo, kabacdina waxa uu diyaarinayaa siduu gurigooda ugu celiyo. Ooshiinna waa ay baryaysaa waxaana uu siinayaa baasha uu ku tumo muusiga una uu baray waxaynayaa. in yar kabacdi waxa uu arkayaa askar waxaana uu ka baqanayaa inay weydiiyaan, laakiinse way ka shakiyayaan waxayna weydiinayaan kaadhkiisa aqoonsiga. balse biin waa uu iska caabinayaa waxaana uu nabadgelyeynaya Ooshiin waana uu cararaya, laakiin askartii waxay tooganayaan biin halkiina waa ku dhimanaya. Ooshiinna waxa ay sidii ku tegaysaa gurigoodii. waxaynu arkaynaa hooyadeed oo ku dhagaysa waxaana imanaya aabaheed oo garaacaya maadaama ay ka timid shaqadii. maalinka xigta waxaynu arkaynaa Ooshiin oo la ciyaaraysa walaalkeeda yar oo ay ka tagtay isagoo aan dhalan weli, laakiinse markiiba waxaa qaadanaysa gabadh la siiyey si ay u korsato. Ooshiinna waxay tumanaysaa muusigii iyadoo murugaysan. ayaama kabacdi waa ay laabanaysaa si ay u soo shaqayso, waxaana u tegaysaa xaafad iyada oo weydiisanaysaa inay u shaqayso una sheegaysaa inay in badan soo shaqaynaysay. kadibna waxa ay hor fadhiisanaysaa xaafadii. marka ay diidaan inay u shaqayso waxaana ka furaysa albaabka inanta ay dhashay islaanta xaafaddu iyadoo soo xaraynaysa maadaama ay tahay xilli dambe. waxayna ka baryaysaa inay u shaqayso waxaana ku soo baxaysaa islaantii xaafadda wayna ka aqbalaysaa. Ooshiin way farxaysaa waxaanay bilaabaysaa inay shaqayso. waxaynu arkaynaa Ooshiin oo ku guda jirtay shaqadeeda. waxayna arkaysaa buug ay leedahay gabadha ayada loo yahay xaafadda ee jinsina waxay raadinaysaa buuggeedii. waxayna arkaysaa Ooshiin oo haysata wayna u dhiibaysaa waxaana u sheegaysaa in ay akhrisanayso laakiinse ma rumaysanayso. waxaanay ku tuhmaysaa inay tuugo tahay. faamilkiina waxa ay kulmayaan si ay wax uga qabtaan gabadhan tuugada ku noqotay. Ooshiinna waa u soo gelaysaa iyadoo u sheegaysa inay akhrisanayso laakiinse ma rumaysanayaan. waxayna u dhiibayaan buuggii si ay u akhrido maadaama ay tahay reer baadiye. kabacdi islaantii xaafaddu waa ay rumaysanaysaa waxaana u sheegaysaa inay jinsi hadda kabacdi iskuulka la aadayso si ay wax u soo barato. jinsi waxay arkaysaa Ooshiin oo tumanaysa muusikadeedii waxaana ka codsanaysaa inay u dhiibto waana u dhiibaysaa, laakiinse jinsi waxa u sheegaysaa inay u geynayso ayadeed marka ay rabtana ay ka doonan karto. Ooshiinna waxay isku dayaysaa inay ka qaadato wayna ka tuuraysaa, laakiinse Ooshiin waa ay tuuraysaa iyadoo u xareeraysa dhanka bahasha. kadibna jinsi waxay soo qaadaysaa bahashii wayna ku joogsanaysaa si ay u kala jebiso. Ooshiinna waxay tuuraysaa gabadhii ilaa ay dhulka madaxa ku dhufanayso oy ka murudaboolmayso. Ooshiin waxay u tegaysaa islaantii si ay uga soo raaligelayso waxa dhacay. waxaana dilaya aabbihii dhalay jinsi waxayna isku dayaysaa inay u sharaxdo waana uu ka cararayaa maadaama gabadhiisii yaray soo kacday. maalinka xigta Ooshiin waxa u samaynaysaa gabadhii yarayd caruusad. waxaanay arkaysaa marka ay soo kacdo waxaana u kacaysaa dhankii reerka oo ka shiraya si ay guriga uga saari lahaayeen Ooshiin. waxaana u sheegaysaa inay iyada ciqaabaan maadaama ay dambiga leedahay markasta ka hinaasi jirtay Ooshiin. maalinka xigta Ooshiin waxay ku arkaysaa hooyadeed suuqa. marka ay guriga timaadana waxay maqlaysaa odaygii reerka oo leh maanta waxay daba socotay gabadh aanan garanayn. Ooshiinna waxa ay garanaysaa in ay hooyadeed tahay waxaana ay kulmayaan amin dambe. Ooshiinna waxa u sheegaysaa hooyadeed inay raacayso laakiinse way ka diidaysaa. waxayna u sheegaysaa inay haysato nolol fiican. waxayna soo noqonaysaa tii oo ooyeysa waxaana dejinaysaa islaantii xaafadda Min. kadib jinsi waxa u sheegaysaa inay soo ogaatay inay ayadeed xanuunsanayso wayna amba bixinaysaa. Ooshiin hooyadeedna waxa u sheegaysaa ayadii inay u soo socoto Ooshiin, laakiinse waxay imanaysaa xilli ay naftu ka baxday ayadii wayna ooyeysaa ilaa dhulka u dhacdo. waxaynu arkaynaa kabacdi Ooshiin oo qaadanaysa lacag ay uga tagtay ayadeed waxaana ay ku dhagaysaa hooyadeed. waxaana u sheegaysaa inay rabto inay noqoto sideeda oo kale. waxaana ay go'aansanaysaa inay laabato si ay u soo shaqayso reerkoodana u soo caawiso. fadlan subscribe saar channelka gambaleelkana furo si uu ku soo gaadho fiidyo walba cusub. like saar siina share garee si aad u gaadhsiisid asxaabtaada iyo familygaaga. commentigana kaga soo dhiibo faalladaada.